السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة يلتحنيه إن دولة عثمانيين توحين حلقة هرق سوق عضن يحكم كي مراد كي كوباد ما تنهدي اللوين وقلادو وحين حلقة نكو يقدرنا وقت يحكم كهيويل كي ودلي مراد بايزيد أي نوقل المقال كينا أي نكو هرينو دنكنولوجي سجار كاه بايزيد بن مراد بن أرخم بن عثمان بي وحاول الشيكون صدح بغولي لحدن كي ميلادية ويدي وحال أورنجري جلسة شيخ هاتون aabihiina waxa uu ahaa muraadkii koowaad waxa uu guursaday Bayezid tiraba 4 dumar ah dhammaantoodna waxay ka soo jeedeen reer boqortooyo waxaana la kala oran jiray Sultana Hatun, Divlid Hatun, Tasbina Hatun iyo Hafsa Hatun. Caruur waxa uu dhalay 8 wiil iyo 5 gabdho waxaana uu kala dhalay 4 dumar ah ee soo sheegnay. Bayezid waxa uu ciidanka ku biiray 3 sano ee u dambeysay xukunkii aabihii Muraad sida darteed waxa la sheegay inuu aabihii uga aqoon badnaa dhanka ciidanka balse dhanka aqoonta diinta aabihii ayaa kaga fiicnaa. marka aynu ka hadlayno taariikhda xukunkii Bayezid waxa qasabay inaynu muddada xukunkiisa u kala jibino 2 qaybood si aynu ugu cadaalad sameeyno oo aynaan dhan qura uga eegin. qaybta koowaad waxaynu ka dhigaynaa 8 sano ee xukunkiisa u horeysay oo aynu ugu magac dari doono sanadihii halganka waa intii u dhaxaysay 1389 ilaa 1397. qaybta labaadna waxaynu ka dhigi doonaa 5 sano ee xukunkiisa u dambeysay oo aynu ugu magac dari doono sanadihii leexashada waa intii u dhaxaysay 1397 ilaa 1402 miilaadiga. sideeda sanadood ee waqtiga Bayezid dahabiga ka dhigay waa 8 sano ee uu gaarsiiyay dawladdu inay ka taliso dhul dhan 912,000 oo kiiloomitir square halka ay ahayd markii uu xukunka qabtay 500,000 oo kiiloomitir square. waana sanadihii uu furtay qalcadii Ashhir oo ahayd qalcadii u dambeysay ee Byzantiniyiintu ku lahaayeen Anatolia. inkastoo aynaan ka gayoonayn tirinta magaalooyinka uu furtay ee ciidamadiisu sida daadka u jiirayeen haddana meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa galbeedka Romania, Jamhuuriyadda Dubrovnik, galbeedka Albania ilaa iyo magaalada Thessaloniki ee gudaha waddanka Greega. sidoo kale markii uu Bayezid ka talaabay webiga Danube waxa ay cabsi aad u weyn soo food saartay Katooligii galbeedka Yurub xukumi jiray. webiga Danube haddii aadan hore u maqal daawade waa webi ku teedsan in badan oo ka mid ah wadamada Yurub oo ay ka mid yihiin Germany, Austria, Hungary, Slovakia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova iyo waliba Ukraine. kadib markii ay arkeen Katooligii inay Cusmaaniyiintu Danube soo gaareen waxay isu diyaariyeen dagaal aad u weyn oo ay isku hortaagaan furashooyinka Cusmaaniyiinta. waxaanay soo ururiyeen ciidamo dhamma 130,000 oo askari oo ka koobnaa dawladihii galbeedka Yurub waxaana hogaaminayay boqorkii Hungary ee waqtigaas oo la oran jiray Sigmund. 130,000 ee ciidamada reer Yurub ah ayaa waajahaya 70,000 oo ka mid ah ciidamadii Cusmaaniyiinta waxaana Cusmaaniyiinta la dheeraa 60,000 oo askari waa tiro u dhow inay ku soo labalaami karayeen waxaanay macrakadan xoogani dhacday 1396 miilaadiga iyadoo lagu magacaabay macrakadan Macrakatu Baikopolis. dagaal la isku hobtay kadib waxaa dhacday arrin mucjiso ahayd oo ah in ciidankii laba jibbaarka laga badnaa ee Cusmaaniyiintu ay cagta mariyeen ciidankii reer Yurub iyagoo goobtaas oo kaliya ku dilay 100,000 oo ka mid ah askartii Saliibiyiinta ahayd ee reer Yurub. 10,000 oo askarina waa ay soo qafaasheen halka 20,000 oo kaliyana uu la fakaday boqorkii Hungary ee ciidanka hogaaminayay. dagaalkaas kadib Yurub waxay gashay xaalad daciifnimo ah oo aanay lahayn awood dambe oo ay Cusmaaniyiintu isku hortaagto. guushaas weyn ee uu Bayezid gaadhay kadib waxa khaliifkii Cabbaasiyiintu ku magacaabay Bayezid naanays ahayd Sultan Bayezid as-Saaciqa waxa uu noqday khaliifkii ugu horeeyay ee Cusmaani ah oo qaatay title-ka suldaannimada. qaybta labaad ee muuqaalkeena maanta waxaynu ku eegi doonaa 5 sano ee u dambeysay xukunkii Bayezid oo ahayd 5 sano ee ay ku sigatay inay dhacdo dawladda Cusmaaniyiintu. intii u dhaxaysay 1397 ilaa 1402 miilaadiga daciifnimada baahsanayd ee ku timid dawladda Cusmaaniyiinta waxaa loo sababeeyaa inay ahayd leexadkii ku yimid suldaankii dawladda ee Bayezid oo ku kacay waxyaabo ka soo horjeeda diinta Islaamka.
kadib markii uu baneeyay cabidda khamriga iyo weliba sinada. sidoo kale waxa ay 5 sano gudahooda dawladda Cusmaaniyiintu weyday garab istaagii dawladdii Mamaaligta oo waqti badan ka dhinac dagaalamaysay dawladda Cusmaaniyiinta. kadib markii uu Bayezid qabsaday magaalada Malaadiya oo ka tirsanayd waqtigaas xukunka Mamaaligta. waxa kale oo ay Bayezid isku dhaceen boqorkii Ciraaq ee waqtigaas. waxa ay sidoo kale dagaalo sokeeya ka qarxeen gudaha Anatolia. xaaladda dawladda Cusmaaniyiintuna way ka sii daraysay 5 sanadood ee dambe. inta aynaan qaybtan ka bixin daawadayaal, waxaynu eegi doonaa dagaalkii weynaa ee dawladda Cusmaaniyiinta taariikhda ka tirtiri gaadhay. inta aynaan dagaalkan iyo sheekadiisa gudagelin, aynu ka jawaabnaa su'aasha ah: kuma ayuu ahaa hogaamiyaha dagaalkan awooday inuu Cusmaaniyiinta hadal ku soo celiyo waqtigaas oo ay awoodoodu ahayd awoodda ugu sarreysa gudaha Anatolia? waxa uu ahaa Mongolian la odhan jiray Timur, balse asal ahaan hooyadii Turkiyada ahayd. waxa uu ahaa hogaamiye madax adag oo dawladdii Khaaniyada kadib dawlad ka aasaastay waddanka Shiinaha. iyadoo dawladdii Cusmaaniyiintu ku jirto xaaladii kala daadadka ahayd ee aynu soo sheegnay, ayuu ninkani waraaq handadaad iyo bahdilaad isugu jirta u soo diray boqorkii Cusmaaniyiinta ee Bayezid. waxa uuna ka dalbanayay in uu 2 nin oo xabsiga Rooma kaga xidhnaa u soo saaro. 2 nin ayaa la kala odhan jiray Yusuf iyo Ahmed bin Idris. Sultan Bayezid isagoo aan ku xisaabtamin waxyaabihii uu sameeyay 5 sano ee u dambeysay oo ahayd inuu waayay qaybo badan oo awoodiisa ka mid ahaa, ayuu ka cadhooday bahdilaadda ninkan iyo kibirkiisa, waxaana uu u diray waraaq handadaad ah oo uu dagaal ugu baaqayo Mongoolkii Timur ahaa. waxayna muslimiintu ninkan la dagaalameen iyagoo aan ku xisaabtamin awoodiisa ama yaraysanayayba. natiijaduna waxay ahayd in cagta la mariyay oo ay shahiideen 50,000 oo ka mid ahaa ciidamadii dawladda Cusmaaniyiinta. intii soo hadhayna ay firxadkii firdhadeen, halka suldaankii dawladda Cusmaaniyiinta ee Bayezid ahaana la qafaashay oo jeel lagu xidhay. dhulkii dawladda ee ballaarkiisu gaadhayay 912,000 waxa isugu soo ururtay 600,000 oo kiiloomitir oo keliya. waxa uuna noqday Bayezid sultaankii u horreeyay uguna dambeeyay ee gacanta lagu dhigo dhammaan wixii salaadiin soo maray xukunka dawladda Cusmaaniyiinta. waxa uuna jeelka dhexdiisa ku dhintay 8 Maarch 1403 miilaadiga isagoo 42 jir ah. wallahu a'lam. xilqadeena soo socota insha Allah waxaynu ku eegi doonaa suldaankii lagu naanaysi jiray aasaasihii labaad ee dawladda Cusmaaniyiinta. nagu soo bir daawade si aad ula socoto muuqaalada tayada iyo tirada badan ee aanu dhawaan halkan ku soo hirgisi doono. sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.